waxaa jiri jiray nin maxamed la yiraahdo oo adeega ka ahaa qasri. maxamed waxa uu iibin jiray biyo, waxa uuna suuqyada la wareegi jiray aashuunkiisa. dadkuna waxay ku jeclaadeen dabeecad wanaagiisa iyo nadaafadiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa maqlay boqorkii u talinaya dhulkaas wanaaga ninkan biyaha iibiyo. markaasuu ku yiri wasiirkiisa hala ii keeno maxamed. wasiirkii waa uu baxay, wuxuuna maxamed biyoole ka raadiyey suuqyada ilaa uu ka helo. kadibna waxa uu u geeyey boqorkii waxa uu ku yiri maxamed, maanta laga bilaabo ma lihid shaqo ka baxsan qasrigan. waxaadna waraabinaysaa martidayda, dhinacaygana waad soo fadhiisanaysaa oo aad iiga sheekeynaysaa waxyaabihii aad ku caanbaxday. maxamed waxa uu ku yiri amarkaaga ayaa jiro boqorow. waxa uuna u laabtay maxamed xaafadiisa. kadibna arrintii ayuu u sheegay xaaskiisa. maalintii xigtay ayuu ku soo libistay dharkiisa midkii ugu qurxoonaa, sidoo kalena waxa uu nadiifsaday aashuunkiisa. kadibna waxa uu tegay qasriga boqorka. isla markiina waxa uu bilaabay inuu biyo siiyo golaha wasiirada, halkaasoo ay fadhiyeen dad fara badan. kadib markii uu shaqada dhameeyey waxa uu soo fadhiisan jiray boqorka dhinaciisa, wuxuuna ugu sheekeyn jiray daruufo iyo sheekooyin qosol leh. markii ay maalintu dhammaato maxamed waxa uu qaadan jiray lacagta uu maalinkaas shaqaystay, wuxuuna aadi jiray gurigiisa. sidaas ayuuna ahaa muddo sanado ah, ilaa maalinkii dambe uu ka maseeray wasiirkii boqorka. wasiirku waxa uu ka maseeray kaalintuu adeeguhu ugu jiro boqorka iyo sida uu boqorka u jecel yahay maxamed. maalintii xigtay wasiirka ayaa u yeeray maxamed. markaasuu ku yiri boqorka waxa uu ka cabanayaa afkaaga urkiisa. waa uuna ku dhibsaday. maxamed waa uu yaabay. markaas buu ku yiri maxaan sameeyaa si aan boqorka ugu ilaaliyo afkayga urkiisa? wasiirka ayaa waxa uu ku yiri waa inaad maro afka ku soo duubataa markii aad imaanayso qasriga. maxamed waxa uu ku yiri waa tahay, sidaas ayaan samaynayaa. markii uu waagii baryey maxamed waxa uu afka ku soo duubtay maradii, waxa uuna yimid qasrigii sidii caadada u ahayd. boqorkii ayaa la yaabay sababta uu maxamed marada afka ugu soo duubtay. maalinta xigta maxamed sidii ayuu marada afka ugu soo duuban jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqorkii weydiiyey wasiirkiisa sababta ninkan marada afka ugu soo duubto. markaas ayuu wasiirkii waxa uu boqorka ku yiri haddii aan kuu sheego waxaan ka baqayaa inaad madaxa iga jarto. boqorkii waxa uu ku yiri ammaan ayaad iga helaysaa, ee ii sheeg waxa aad og tahay. wasiirkii waxa uu ku yiri maxamed waxa uu ka cabanayaa afkaaga urkiisa, wuuna ku dhibsaday. boqorkii ayaa yaabay, wuxuuna u sheegay arrintii xaaskiisa. waxayna ku tiri qofka sidaas u fikiray waa in birito madaxa laga jaraa si ay tusaale ugu noqoto kuwa isaga la midka ah. waxa uu ku yiri waa ra'yi aad iyo aad u fiican. maalintii dambe waxa uu boqorkii u yeeray ciidanka dadka dilka ku fuliya, wuxuuna ku yiri haddii aad aragtaan qof qasriga ka soo baxaya oo sito xirmo ubax ah, madaxa ha laga jaro. sidii caadada u ahayd adeegihii qasriga ayuu yimid, wuxuuna qaybiyey biyihii. markii la gaaray xilligii rawaxaadda ayuu boqorkii u yeeray maxamed, wuxuuna siiyey xirmo ubax ah hadiyad ahaan. adeegihii markii uu sii baxayay waxaa ka hor yimid wasiirkii, waxa uuna weydiiyey yaa ku siiyey ubaxaan? maxamed ayaa ku yiri boqorka ayaa i siiyey. wasiirkii waxa uu ku yiri isii ubaxa, aniga ayaa kaa mudane. maxamed wuxuu ubaxii siiyey wasiirka, wuuna iska tegay. markii uu wasiirkii baxay ayaa waxaa qabtay raggii dili lahaa, madaxa ayayna ka jareen wasiirkii. subaxii dambe sida caadada u ahayd qasriga ayuu yimid adeegihii isagoo afka u duuban yahay, aashuunkiisana sita, wuxuuna biyihii u qaybiyey dadkii meesha joogay. boqorkii waxa uu la yaabay ninka uu u haystay inuu dhintay oo meesha jooga. kadibna waxa uu u yeeray maxamed, waxa uuna weydiiyey maxaad afka u soo duubataa maxamedow? maxamed ayaa ku yiri wasiirkaaga baa ii sheegay in afkayga soo urayo oo aad i dhibsatay boqorow, wuxuuna igu amray in aan afka soo duubto. sidaas ayaana afka u soo duubtaa boqorow.
boqorka ayaa mar kale su'aal kale weydiiyey maxamed wuxuu ku yiri aaway xirmadii ubaxa ahayd ee aan ku siiyey maxamedow maxamed ayaa ku yiri waxa iga qaatay wasiirkii wuxuuna yiri isii ubaxan aniga ayaa kaaga xaq lahaa boqorkii wuu dhoolo cadeeyay markaas buu ku dhahay hubaal isaga ka mudnaa xumaan kasta ninkeeda iyada ayaa kaaga filan